Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa fariintii u dambeysay oo aan u dirayo madaxweynihii hore ee dalkan ee u dambeeyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee waqtigiisa ugu dhammaaday, oo aan si walaaltinimo ugu sheegayo dagaalkan uu ka oogayo ama uu mataqaanaa u adeegsanayo weliba rag khaas oo aan saaxiibana nahay iyaga laftirkooda oo uu biixi ka mid yahay inuu dagaaladaas uu joojiyo oo aanu weerar dambeetood aanu samaynin oo madaxweyne ka horeysay isaga iyo kuwa isaga la tartamayaba midkoodna uusan mar dambeetood isku dayin, waayo taas waxay keenaysaa hal cunug oo ku dhaawacma dhiiggiisu waa qaali. taasna waxay bedeli doontaa isaga dhiiggiisa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhiiggaaga laftirkiisa ayay marka dambe ayay mataqaanaa cunugaasi u dhigmi doonaa. Uma baahnin, waqtigii wuu dhammaaday. Walaalow, si soomaalinimo ah iskaga tanaasul, ka bax wadankan. Haddii aadan baxaynin oo aad rabto inaad sharaxdid, si sharaf leh walaalaha ula heshii kursiga fariiso, imow. waxyaabahan aad ku dhegan tahay ood leedahay gedaan rabaana ka tag, oo Soomaaliya oo dhan baad rabtaa, Soomaaliya oo dhan musharax u noqo. haddii kale walaalow geda iska tag oo geda mataqaanaa musharax ka noqo. gobol ahaan waaba lagu ogolaan karaa, waa gobolkaagii. haddii aad taa diidid waxay noqonaysaa dagaalkii ugu cuslaa. ummaddan way diyaar garoobeen, way isku tashteen, magaalada way burburaysaa. aad leedahayna magaalada hadday burburto bedelkeeda isla markii waa la dhisayaa, isla mar ahaantii waa la dhisayaa, xataa ma daahi doonto.